barnaamijkeena wax ka baro ciyaartooyga degmada Balcad waxaan caawa ku soo qaadan doonaa ciyaaryahanka da'da yar ee loo yaqaan Umar Bashir. ciyaaryahanka ayaana ahaa sanadkani ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa markii loo eego kubadda cagta. qof waliba oo jecel kubadda cagta wuxuu jecel yahay inuu gaaro horumarkaas oo ku hami weynaa Umar Bashir ugu dambayn wuxuu sameeyay horumarkii uu rajeynayay waayo waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo muuqda horyaalka Somali Premier League oo muddo uu ku taamayay in mar qura uu ka mid noqdo kuwa ka ciyaara horyaalka Somali Premier League. qof walba oo kubadda ciyaara wuxuu jecel yahay inuu mar qura uu ka gaaro horumar balse waxa qof walba uu horumarkiisa ku xiran yahay kaliya inuu ka soo muuqdo kooxaha waaweyn ee ka ciyaara Soomaaliya kuwaas oo mararka qaar ay ciyaartooyda ay si fiican ugu hameeyaan in ay mar qura ka mid noqdaan. Umar ayaa isku muujiyay tartankii degmooyinka ay markaasi degmada Balcad ka mid ahay kuwa lagu casuumay tartankaasi asigoona tartankaasi wacdarooyin aad u weyn ka soo bandhigay taas oo sababtay in kooxaha ka dhisan horyaalka Somali Premier League ay mar qura ku baraarugaan in xidigani uu yahay xidig aan waxba laga qaban karin isla mar ahaantaana shaqo diyaar u ah. waxaa ciyaaryahankaasi heshiis la galay kooxda MCC kaas ay markaasi rajaynaysay in ciyaaryahankani uu noqon doono mustaqbalka ciyaaryahankii markaasi matali lahaa Soomaali. xidiga oo muddo ku sugnaa MCC ayaa isaga hayaamay asigoona sanadka kani u ciyaaraya kooxda Jazira. xidiga ayaa ah xidig ku tayasho mudan maadaama uu noqday xidigii ugu horeeyay ee ka hayaama degmada Balcad isla mar ahaantaana ka ciyaara horyaalka Soomaaliya Premier League. ma jiro qof ka horeeyay ee sidaanoo kala muujiya. ciyaaryahanka ayaa sidoo kale isku muujiyay maamul goboleedyada kaas oo u ciyaarayay Hirshabelle wuxuuna ciyaaryahankani noqday ciyaaryahanka kaliya ay u dhaliyay goolka madiya ah ay sanadkani sheeganayso Hirshabelle. xidiga ayaa sidoo kale u soo ciyaaray markii laga hadlo degmada Balcad. xidiga ayaana u soo ciyaaray kooxo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin Inter Banana, Midnimo, Horseed iyo sidoo kale Elman. hadda waa ciyaaryahan Horseed degmada Balcad markii loo eego Soomaaliya Premier League waxa uu u ciyaaraa Jazira. ciyaaryahanka ayaa sidoo kale sanadka kani ka saaciday in tartan xaafadeedka degmada Balcad ay mar kale ku guuleysato hooyada horyaalada ee Wabari oo sanadkeedii labaad ku guuleysatay koobka koob xaafadeedka degmada Balcad wuxuuna u xaqiijiyay goolka kaliya ay ku guuleysatay Wabari ay markaasi ku noqotay in ay sanadkii labaad ku guuleysato koobka tartan xaafadeedka degmada Balcad. mar aan wax ka weydiinay taariikh nololeedkiisa ciyaareed wuxuu inoo sheegay Umar Bashir sida tan: anigu waa Jelani Ali Mucu Kamara halka waa Raja Sports Balcad inta aan barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waa anigu ah